dayaxan hadda u jeedid idriso wuxuu ahaa loox ma aragtay baadiyaha laga keena camal maya fiir hadda ma ka hadlaa idris ninkan waagii shukaansiga iyo guurka sanadka ugu horeeya aa wada joognay been ma kuu sheegaya wuxuu ahaan jiray loox caadi ah war ma maqlaayo yacni ixtiraamkaani ma jirin ninkan waa tababarta horta ninkaan arkoosin gabdho horta iimaankiina dhuuqsada ma fahanteen ninkaana u jeediin loox caadi aan qofka dhigtay marka dayaxoo waxaysan fakri oo wax waagaas haysanin waxa u doortay iyo nimankaas hantidaystay oo wax walba isiin karay oo nolol kasta markaas aa heli karay waxaa uga doorbidaa waxay tahay qalbigayga ana farxad iyo wuxuu u baahan yahay qanacsanaan ma fahantay wallaahi abuu ani laftirkeyga guur iga soo xumaado waa jira ma fahantay oo guurka dayax iiga horeeyay صح at sometimes commentida ba arkaa maraa la igu soo qororta farxi waa inkirtaa wiilkeeda ani wiilkeyga ma inkirsani hodan waxaa jira wiil iiga weyn ma fahanteen oo maxamed deeq la dhahaayo marka ma aragtay sida xaqiiqda urunta tahay waxa waaye hadda guurkeyga koowaad been ma fiicno saa hadda guurkan ku ahay kuma aheen sida hadda dareemayna ma dareemi jirin marka khasab ma ahan maanta haddii fiira wax isku daydo wax walba la isku dayo haddii hal maal aa guuldaraysato laazim maalinta labaad waa guuldaraysanaya maanta haddii guur aa geshid aa maanta ku fashilintay ama guurkaas kaa xumaado it means ma ahan in noloshaada meeshaas ay ku eg tahay keliya ma aragtay anay hal mid bisaa jeclaan laag maanta hodan aamus markii ma aragtay guur aa geshid ninka kugu xumaaday xumaantan adduunyada ugu weyn xitaa hadduu kugu sameeyo inaan sii gocanin oo hore uga socotid ma fahantay dib walbaa soo aragnay oo guur naga xumaada waa aragnay ma fahantay ninaa maanta ugu sabartay dhibaato ama faqri ma fahantay kiyaa ku xumeeyey markuu wax helo waa dhacdaa inta badan waa la arkay ma fahantay okay adduunyada marka maalintii ma ku eko adig qofkaagii weli ma helin laazim qof walba qof isfahmayna adduunyada u joogo ma fahantay maanta haddii guurkan kaa xumaado oo guurkan maanta ku hagaagi waayo it means maha adi noloshaada inay meesha ku dhammaatay laakiin si sharaf leh guurkaas oga bax ka tag kala taga wiilku waa kala tagteen mahan oo yacni waa laazim waa soo dhammaanaa in la is aflagaadiin hadda social media waxa kusoo badataa waxay tahay labadii qof isfurto inay iscaayaan waxyaalo xun inay isdhahaan ma fahantay marka gabar waxay ogaanaysaa maanta markii lagu furo aa ninka hore aa caysid oo aflagaadiisid waxa waaye mustaqbal u baahan tahay nin dambe ku guursanaya ma jiro waayo waxa waaye qadaraa jirto furin wuu dhici karaa nin walbana wuxuu diida dannaa caytintid يعني gabadha ma aragto horta markastaba qofka markii naag lala guursado inta badan ma dhacdo inay ku sabraano sax ma dhacdo ma ogtahay ani marka hal tal la jirto waana ogaa qof lala guursado ma ku sabar siin kartid sii sabar waayo qofka shal soo sabray marka keliya guurkaas haddii marka ninkaas uu sas ku noqdo ay gabadhiina ku qanacsanaya isaga tagto laakiin guurkeeda labaad ha u meel dayato ani dayax ka hortiis mintaa garoobeynaya been makuu sheegaya nin nooc kastaa ku dhahay oday waayeel wiil yar dhexdhexaad kulli ay soo mareen ma fahanti waa arkeen nin kasta markaan sheekaysanayno waa wada hadlaynaa moogtahay marka qof kastaba hadalkiisa hadal yar ciladaa ka arki jiray ma fahanti marka dayaxoo waxaysan fakri oo wax waagaas haysanin waxa u doortay iyo nimankaas hantidaystay oo wax walba isiin karay oo nolol kasta markaas aa heli karay waxaa uga doorbidaa waxay tahay qalbigayga ana farxad iyo wuxuu u baahan yahay qanacsanaan ma fahantay nin kastaba marka qaar waxaa jira wax kuu qarinaynin burunta kuu sheega dayaxan hadda u jeedid idriso wuxuu ahaa loox ma aragtay baadiyaha laga keena camal maya fiir hadda ma ka hadlaa idris ninkan waagii shukaansiga iyo guurka sanadka ugu horeeya aa wada joognay been ma kuu sheegaya wuxuu ahaan jiray loox caadi ah war ma maqlaayo yacni ixtiraamkaani ma jirin ninkan waa tababarta horta ninkaan arkoosin gabdho horta iimaankiina dhuuqsada ma fahanteen ninkaana u jeediin loox caadi aan qofka dhigtay wax ku shubay waxaan ku dhahay ninkan jaceelka kale gaarka ahna waxaa mataqaanaa reer tolka ilaahay qaar ha siiyo ilaahayna ha sharfo waa sharfan yihiin ma fahanteen qiimahayga ma aragtay way dareensiiyeen ma fahantay magaalada xamar laandheera banaan dega maqli jirtay libaax leerta jiifo war waxaan ku dhahay bisinka madaxaasaa la saartay madaxaas ma aragtay